kanaad kolka hore nooga bilaabanaya xarkahan yaryar haddii aan meesha kusoo qornay kadibna xadhig intaan dhiganaynaa xadhig kale waxaan dhiganaynaa maalan halkan waa ilaa 6 iyo inay noqdaan baa fiican meelahaas oo kale sidaan baad horta u samayn insha allahu marka koobaad waa meesha aad ku kanfi lahayd baad joogtaa saasaan u dhigaynaa si isla eg kow iska dhig kow haddana kan kalena waa 2 kafanka sida sunnada waa 3 dantaa laga yaaba inay keenaysay iyo duruufta laakiin sida alka waatan sida asalka waatan culimada ma la socotaan maxaan samaynay 3 kafan oo xarka yar yar ay hoosta aan dhignay ayaanu halkaa dhignay markaan kafanta dhigay yay ahayd inaan halkan ku aadan aan kan dhigo waa la fahmay soo sama kadibna sida markuu yahay dhinaca midig baa laga bilaabayaa yar badan laakiin inkastoo okay sidan tahay okay haye tii labaadna waa kan isagana waa kan kii saddexaad marka waa kan maartaan hadda haddaad fiirisaan maxaa soo haray xarkihii oon diyaarsaday oo halka ii yaalay waa kuwaa marka okay kaas waa kaas kanna waa kaa kanna waa kaa kanna waa kaa kanna waa kaa hadda ma la fahmay kan intaa lagu xidhayaa kanna intaa lagu xidhaya marka damaradan soo ma artaan maro weyn baan ka soo dhigay wax yar oo naf lahayn baad horey u dhigaysaan kadibna halkan waad dilaacinaysaan waxaa ii soo haray haddii meydkani la waayo hal oo maxaa la yidhahdaa aan kan ahayn oo lagu hal miis baan haystaa soo ma hal miis basaan haystaa dhihi saasaan dhihi maalan waan duuduubaya marka soo duubkan kan soo duub hal miis soo ma rabtaan sida loogu kanfo inaan idiin faa'iideeyo ayib intaasoo kalaan saas dhahaya waa la faham soo ma maalan waxaan keenaya hadda meydka tafadal meydka kale aan maalan tusaale ahaan keenaya seexaada yar macani halkan waxaan ka dhigaynaa meel cidla aya oo aan waxba olin soo saas ma oo dhulka yaalla hor yar soo yar dhulka yaalla kadib maxaan samaynaynaa sidan baan dhahaynaa sax mujida isla ekeysiina waan ku qiyaasayaa isuus hadhowta xagga iga badanin soo saas ma kadib kanaan qaadaya sidii caadiga ahayd saasaan dhahayaa kadibna saasaan dhihi fiiriya mujida fiiriya si fiican samee waxaas dhan waa diyaar kadib soo celi marka hadda maxaa arkaysaan mujida arta khalaas saasaad marka u samaysan hadihi ariiqa marka mas'alo walba waxay u baahan tahay cilmi iyo aqoon bay u baahan tahay mari waxaa noo soo haray oo keliya marka jinaazadii meydka markii lagu tukanayo jinaaza lagu tukadaa jinaasada rag markii laga hadlayo halkaa madaxa abuu imaamku istaagaa dumar markii laga hadlayana halkaa dhexda abaa la istaagaa saxiix jinaazadu waa 4 takbiirood mar walbana dadka waa la xusuusiyaa marka takbiirta koobaad sidan baa la dhihi هذا وانين مكتر مثلا اساسا به الله اكبر كدبنا محن اخرنا سورة الفاتحة كدبنا الله اكبر صلي النبي ابراهيم يدان كصليني كدبنا كصدح هذا وامحي الله اكبر كدبنا ميت كان لو دعينا وليبا ولغو دheeraada mida ayday gabar tahay iyo haduu nin yahayna waxa loo kala duwaada carabi ku hadlayso allahumma ighfir lahu allahumma ighfir laha الله اكبر oo mid afraad muslimiinta loo ducayn كدبنا السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى علمنا وعلم آد مهم هلقى فائدة يسوء ضدك هلقى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك